بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay islaamka waa salaamaya waxaan si gaar ah u salaamaya si gaar ah intaan isku aragtiyaan nahay ee Soomaalinimadu naga dhaxayso waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iideysto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed inaan halkan hambalyo uga dirno magacaygu Maxamed Cabdullaahi Axmed Maxamed Galayd waxaan ka mid ahay halabuurada ku dhaqan gobolka Togdheer ee ku nool maanta jeclaystay inaan dareenkayga la wadaago 1960 kowdii luuliyo iyo 1969 22 Oktoobar dareenkii ay ummadda Soomaaliyeed dareemeen maalinta ee macaana ee quruxda badnaa ee waxa weeye hawada isbedeshay joog macaana waxa la mid ah dareenka ay maanta markay farmaajo la doortay ummadda Soomaaliyeed dareemeen aniga iyo saaxiibkay Cali Dhanaaniye oo ka mid ah dadka ay aragtiyuuna mideeyeen walaaltinimaduna mideysay halabuurkuna mideeyay waxaan jecelahay inaan halkan ka soo gudbino magaalada Burco aad baan u salaamayaa madaxweynaha farmaajo iyo ummadda Soomaaliyeed guul waxa inoo soo dhow saansaantii midnimada waxa inoo soo dhow saansaantii gobonimada waxa inoo soo dhow saansaantii ay gaaladu jabi lahaayeen ee guumeysuguna tagi lahaa waxa inoo soo dhow saaladii saansaantii aynu ka guuleysanay cadawgeena Itoobiya jaarka nalaah ee kala qaybiyay mid waxa weeye aynu maamul goboleedada nahay waynu ka guuleysanay baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed oo hambalyeynaya waxay waxa weeye mataleen rabitaankii shacabka Soomaaliyeed ayay maanta mataleen hambalyo waxaan jeclahay inaan dareenkayga la wadaago anoo kaga warramaya waayihii aan soo marnay iyo waxaan maanta dareenay wax badan baan lafaha qeylin iyo laabnay dhalanteede wax badan baan ladmada diidnayo laamadood jireeye wax badan baan ladaadiyo lahayn liqiyo joogtaaye wax badan bay duruufaha lingaxan talisay liidiye wax badan baan la soo ahayn laalishkurataaye wax badan baan liciifnoo lahayn luudi socotaaye wax badan baan lagdamayno qabiil nagu lifaaqnaaye wax badan buu lidkeennii burburay gaalka layn jireeye wax badan buu labkeennii adka loodintii dhigaye wax badan baan labeentii dalkiya laabnay samihiiye boqboqood la yaab laa lisiyo ligala noo haaye iminkaan lanaantii galniyo liiga nololeede nafsigii la waayaa ku imin laafyo loo bogaye 60kii halkii uu surmuuca walayrsaday liibaanta Soomaalidii luxud ku saarnaaye soo noqontay libintii iyo xaqii luunku daashaday dad lulooday baa toosay oo leefay malabkii caawu lulmanaya dhulkii loo laxaad guraye waxay laabto olashaba hadda laacyo loo galay ma lugo ina gaalkii qurmaa diibta laasimaye lillaahi hadduu ii dhadhamay lugiyo jiirkiye laban kartidii horo lufadka baabiya lamaaneeya hadafkeena oo laan ku wada booda in laliya waa ka nasrigu saaran labigaas guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo hambalyeynaya waxaan ku soo dhaweynayaa halabuur Cali Dhanaaniye saaxiib ugu qaaliya oo maanta dareenka uu wadaagay bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku faraxsanahay inaan halkan ku soo gudbino aragtida aan qabno halabuurku waa qof ummadda u dhaxeeya ama koonfur jooga ama waqooyi jooga ama meel kale inta af Soomaaliga laga hadlo waxaan aaminsanahay qofka halabuurka ah waa qof u dhaxeeya ma aha cid gaar ah qof u xidhan aragtidiisuna ma aha mid cid gaar ah u xidhan ama cid gaar ah ku adeegato waxaan doonayaa halkan inaan ummadda Soomaaliyeed uga hambalyeeyo dareenka quruxda badan ee gobonimada ku dheehan tahay ee lagu soo dhaweeyay laguna qaabilay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa gudateen waajibkiini iyo xilkii ummadda idinka saarnaa waxaana doorateen wadadii isbedelka ee ummaddu u socotay qof in badan loo hanweynaa qofka marka Ilaahay agtiisa laga jeclaado jacaylkiisa dhulka loo soo rogaa dhammaan aragtiyaha aan arkay ee baraha bulshada maray waxay ahaayeen aragtiyo gobonimo ku dheehan tahay oo hambalyo qurux badan loogu dirayo madaxweyne Farmaajo waa qof qalmo baan oran karaa marka aan dhageysto aragtiyihiisa oo qof ay ka dhab tahay wadanimada iyo Soomaalinimada darag wixii aan aragti qabo anigu suugaan ahaan baan ugu soo gudbinay waxaan ma soo leeyahay nin la doortay kula wadaagaya wixii aan oran lahaa aragtidayda noqon ruux dalkiisiyo dadkiisii habeeyo
diiftiyo xanuunkii lagu dhaafo daalkii noqon ruux dareen loo ummaddiisii diratiyo u gargaara duulkii colaaduhu disheedeen noqon ruux ducaystoo dadka simo dhammaanoo daciifnimada dhaafoo dowladdiisa hanan kara noqon ruux dareen loo dadnimada ku caanoo dumaddiisa dhowroo iska reeba duug hadha noqon ruux dulqaad badan ummaddana dareen u leh oo wada daweyn kara noqon ruux ku diirsada dowladaha hayaamee docihiisa wada yaal noqo ruux dukaansiga ku doorsada waxqabashada bogcaddaas laguu diray iyo dowladnimadaas daadihii haldoorkii rabbigow u doorow ummaddeennan daashee kaaruhu duleeyee kulligood dacwadhantee kowkowda loo diray labalabana loo dilay dalwantiyo xabaashiyo lagu duugay wadaraha inta nool daweeyo dowlad ay ku hiishaan iyo damal hadhweynoy ku nastaan u dooro dowlad ay ku hiishaan iyo damal hadhweynoy ku nastaan u dooro ka ilaali daranyada iyo cudur mar kala dila noqo ka ilaali daranyada iyo cudur mar kala dila nin xil doontay ee dalab shacabkaa dalaganee dulloobee la baabow waan kuu damqanayaa dhaqankiiyo dadnimadiyo dubkaa iigu kaa yaal kuma diidi karayo waxaa tahay dadkaygii inkastoo la daalo maatada la dooxoo diihaan la soo maray dawaan kuu rajeeyo waad ka bixi dalluuntiiyo dahadaa laguu jaray waayihii ku daaree kaa daahay naxariis waad ka bixi dalluuntiiyo dahadaa laguu jaray waayihii ku daaree kaa daahay naxariis eraygayga doorkaa murtidayda doolkaa daansho socodkaa maandhow dardaariyo digniintaada weeye waxaan kuugu daray taas dalka hoosu eegeeg ha ku diganin maatada daryeel iyo waxqabad sii waxaan kuugu darayaa waxaad tahay nin loo diray ummad aan dadnimo iyo dastuur iyo waxaga iyo ku garaadsan darajoog siday doonto yeeshee u dulqaado waarhooy haddii kale dabbaa kacay waxaan deel ku soo xidhay danta qaranka dheehoo taadana dib uga dhigo waan kuu ducaynee daayinkey ha kula jiro waxaan leeyahay hambalyo mudane madaxweyne waan kugu hambalyeynayaa kaalintaada ummadda soomaaliyeed uga muuqatay waanan rajaynayaa inaad noqoto qof lagu ilaawo wixii ummadda soo martay ee xanuunka badnaa